فيه الحق وفيه النور وفيه اللؤلؤ والمرجان. ولد يا شبل الإيمان وافتح بالقرآن. أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران. فيه الرحمة والغفران. ولد يا شبل الإيمان وافتح بالقرآن. ولد يا شبل الإيمان وافتح بالقرآن. أبدا لا يعلوه كتاب أبدا لا يجفو صواب أنزله رب وهاب رب تواب رحمن. أبدا لا يعلو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا إخوتي في العقيدة ورمضان waxaana filayaa waa waqti malaa dadku daalay laakiin waxaan isku dayayaa inaan kalimaad kooban insha allahu tacaala dariskan ku soo koobo. dariskan waxaynu kaga hadlaynaa ataaqaat almuhadara, awoodaha allayna siiyey subxaanahu wa tacaala ee aynu dayacnay ama se aynan adeegsanin. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. ilaahay wuxuu nimco idinku galladaystay, wuxuu badhaadhiya sareediya barwaaqo idin siiyey. haddaad tirisaan baa alla leeyahy subxaanahu wa tacaala ma koobi karaysaan. nimcooyinka alle subxaanahu wa tacaala ma aha wax tiro lagu koobi karayo. laakiin waxa isweydiinta le waxa weeyaan intaynu nimcooyinkaasi ka faa'iidaysanaa ama se adeegsanaa. dhan kastoo laga eegaba nolosha waxaad moodaa inaynan halkii loo baahnaa gaadhin ama se aynan ku qanacsanin. maalan waa ramadaan, dadku inta badan qur-aan akhris iyo cibaado iyo salaad iyo tasbiixaad iyo duca ayuu ku jiraa. markaynu milicsano in yar taariikhdii dadkii muslimiinta ee hore waxaad moodaysaa inaynu akhriyayno dad kowkab kale ku noolaa, dhul kale dad ku noolaayo kanaynu inagu deganay aan deganayn. markaad aragta awoodooda, juhdiga, tamartay bixinayeen, waxay yaqaaneen, waxay qaybsanaayeen, marka lagu yidhaahdo waa caalim muslim oo fulana, maanta waxaan ku dhuftay kutub الrijaal ama taraajumka ayaan xafid alqur'aan ku qoray, dabeetana waan galay. waxaan eegay bal culamadii muslimiinta ee hore ee la yaqaanay ama la garanayo uun waxay qur-aan hayeen. maan arag nin caalimo iga soo horbaxa ilaa iyo qur-aan iyo intaasoo kitaab oo kale u qaybsanyay qur-aan qura. innagu keenna qur-aanka qayba ayaa maa shaa allahu taagande kaasaynu ma jiiranaa farta ku tilmaamna waxaa la yidhahdaa intaasoo xaafid baynu leenahay ma hebel waa xaafid. laakiin markaynu salafkeenni akhrino taariikhdooda iyo taraajimtooda waxaad moodaa dad kowkab kale ama dhul kale deganaa inaynu arkayno. oo kaanama marka lagu yidhahdo waa bukhaari intaasoo 100,000 oo xadiid buu qaybsanaa, waa imaamu axmed oo 1 milyan oo xadiid buu hayay, waa awsaaciyo intaasoo 100,000 oo xadiid. nin walba marka lagu yidhahdo 100,000 oo xadiid oo maca sanadkiisa wata iyo wuxuu dhan baan kitaabba ku qorayna uu korka ka watay. bal ay subac u fadhiisan jireen sidaynu qur-aanka subaca ugu fadhiisanaaba ay xadiidka subaca ugu fadhiisan jireen. dabeetana inta nin caalimi nin kale u yimaada buu ku dul akhriyi jiray, wuxuu maxfuudaadkiisa oo dhan intuu ku dul akhriyo ayaa laysla sixi jiray oo la kala eegi jiray. innaga maxaa taaqadan iyo awooddeennii xaggay ka baxda? dariskan markaa maanta aan isku dayay inaan akhriyaa waxa weeyaan waxaan rabaa mindaarka ama
maxaa la yidhahaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhanay aada u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inay noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasaa waxay keentay markaasi in taaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhama ay cadilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasaa waxay keentay in maalinimo maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu isleeyahay berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad waqti u dayday doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladaan idinka jibinaya yani waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin awooddii iyo taaqadii alla ina siiyey subxaana wa tacaala in silsilada inagu xidhan yihiin waayo shayga nolosha ay u baahan tahay maalmaha ka mid a waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadulwaxyeynka laba website oo qur-aanka iyo axaadiista lagu qaybo kadib baa waxaan arkuun iclaan yaroo meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa qur-aanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidii waa qariib war mala 30 maalmood qur-aankii aad taqaanay 30 mala laguma qaybo 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 page runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya waxa uu xisaabiyo uu tilmaamayo uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shay oo quru u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walazima walmusabara midi waa hansare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii la lahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adoo waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awood inay jirto awoodina way kaa buuxdaayo waa lagu tusi waayey Soomaalidu waxay yidhaahdaan geela baa aakhira xooggiisa la tusaabay yidhaahdeen adduunka ilmo yar baa dee neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirunbu xooggiisa arkaa bay yidhaahdaan waxaan ka baqayaa inteenna badani inaynu ku dhacno aakhira un inaynu aragno awoodii iyo nimcadii iyo xooggii allayna siiyey subxaana wa tacaala in adduunka arkari weyni ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay in la helo الصحبة الصالحة المشجعة إن له لضد في عن وقرقرسته الراعدي وأن مثبتين هنا أن ضد لك كقولنا بيا هنا ضد كركو قاضي يكركو سي وضيا وحلا جيا با ولينا وهي ستان إعلان كيا تلمامي ها إن قرآن كصدق معلومات صادقوا قريبة سائنة مسألة الرياض هاي waxau sameeyay amaliye xisaabtu waa waxyaabo ugu concrete ee bini'aadamka lagu qanciyo amaliye xisaaba buu sameeyay wuxuu ku tilmaamay page-ka quraana imsaad ku qaybi kartaa page quraana aan xisaabta xaga kale ka soo maro jiska quraana imsaad ku akhridaa ninka gaabiya nus saac ku akhriya raga carabka fududina rubuc saac meelaha si gaarsiin kara mutawassidkuna 20 ilaa 25 ay ku akhriya haddaan idhaahdo jiska nus saacaad ku akhrida jiska quraani way mise page markaynu qaadano tabcadatan Uthman Taha uu qoray yani musxafkan aynu akhrina ninba gacantiisa ku qoray madbacadii waxa maaha ninba gacantiisa ku qoray عثمان طه كتاب كان قري وحو سميسي قاب شنية طبعا صدر بيت كستابين وككوبين هي آيات نكبل ما آياتنا وكل ماضو جسوا اللي بلا باتم بيتينو يهي مركا لغا ريبو جسكا كوادة فاتحة دي انتان لقرحيي كاسوا كوبيا لباتم بيت مركا لغا تغيسنا جسكا وقدام بيا جس عما oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 3 bage